أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا دمانتين وايد السلامي هلكا iga daawanaysan waa janaalkayga uma samiir official please janaalkayga hadaa ku cusub tahay subscribe like comment share inta wiisa insha Allah ta'ala waa walaashin oo subscribe tii like tab idinka codsanaysa insha Allah ta'ala walaalahayga dhammaantiin waxa idin leeyahay ku soo dhawaada janaalkayga insha Allah ta'ala maanta waxaan halkan hambalyo ooga dirayaa walaashay Safiya Tusmo فصفية تصمى همبليان كلها ولا شيء معانا همبليا صفية تصمى مهرك إذا كدعي مقالة بور حاليا همبليا مهرك وقال السنة ما شاء الله تعالى همبليان كلها باي معانا توحي كصامرة كاميران كلها هاد بهشان كلها قف أقلم أو ما شاء الله أو أيضا محان كلها هاي أقلم أيه هشان كلها وحي هرو محان كلها هاي كاميران كلها ولا شيء معانا تهمبليان كلها هاي صفية تصمى مهركيدا wuxuu ka dhacay magaalada Boorama la dhahay magaalada Boorama ayuu ka dhacay la dhahay saacada ka hor insha Allah ta'ala meherkeedana waxay ka dhigatay la dhahay wax lacag iyo waxaas u baahniyay waxay ka dhigatay la dhahay 120 geel ayay ka dhigatay waa intay 120 geel hambalyan kule abaaya hadda baa maxaan ku dhahay shakhsi ku qalmi aad kursataan kule hambalyo meherkeediyo buux dhaafiyaa lagu dhahay magaalada Boorama kaala iska aragan ku dhahay markay 120 geel dhahday dad badan waxaan ku dhahay haa naxeenan ku dhahay maxaan ku dhahay baaya hambalyan kule insha Allah ta'ala kuwa isku waaro kuwa maxaan ku dhahay abad isku duqoobe kuwa isku samra kuwa maxaan ku dhahay isku dulqaata Allah idinka dhigaan kule wallahi aad ugu farxay markaan arkay maxaan ku dhahay meherkeeda aan arkay aad ugu farxay oo haddana 120 geel oo neef inta miya yaa 100 gram oo maxaan ku dhahay dahab maqlayseen aan ku dhahay hadda waxaad maqlaysiin aan ku dhahay 120 neef oo geel ah yaa ma sha Allah aan ku dhahay abaay wax laga sheekeyn kara ma ahaan ku dhahay xabiibtiyay hambalyan ku leeyahay hambalya waa hooyo Soomaaliyeed maxaan ku dhahay in maxaan ku dhahay la farxo maxaan ku dhahay aad u mudan tahay horta maxaan ku dhahay dad waxaan arkay maxaan ku dhahay wiil ay maxaan ku dhahay sawir la soo galgalayso mise ay video la soo duubayso Nairobi joog la dhahay ma haddana ma kureyga yar baa guursatay war horta wax walba hubsiina la siistaa wax walba waa la hubsintaa wiil adoomay oo maxaan ku dhahay madow badan oo saan oo maxaan ku haddana wiil ka yar wiil korta Soomaali buu ahaa oo wiil ka yar oo guursataa la dhahay laakiin waxa way qofka haddii labada qof intay video isla duubayaan aragtiin intay isla socdaan astin dirba maskaxdiina ha u bedelin qofkan intuu qofkan guursado mise uu dan kale yahay dadka maxaan ku dhahay way isla duubi karaan dadka maxaan ku dhahay wallahi aniga xataa horta way rumaysan jiray runa u maleyn jiray laakiin kama soo hadlin sababtoo hubsiima halaa la siistaa baalde hubsiima halaa la siistaa waxaan marunba ma beenba warba kama hayst ma fahantay ma beenba marunba warba kama hayst maxaa ugu soo degdeg waa qalad dadaan wax arkay haddana makiiba haddana ayadoo soo ooynays ayadoo saan ayadoo calaacalays yaana maqlin maxaan ku dhahay wax walba adinka hubsada ayaa fiican hubsiina ayaa wax walba la siistaa ayaan dhahay walaashi inta caysaan inta aflagaadeysaan waa laga fiicayaan ku dhahay kulay hadda maxaan ku dhahay guursatay hadda maxaan ku dhahay xarootay hadda maxaan ku dhahay nin u qalmo ma sha Allah ay guursatay oo maxaan ku dhahay oday kaal iska arag yaa wixii hore laga tagaan ku dhahay wixii ku soo maray karmeera xabiibtiyay marka walaashi inta usoo hambaleystaan hambali u sameystaan aad u fiicanta maxaa wixii xunba maxaan ku dhahay waa baafin jirteen de haddana haloo soo fadhiisto haloo hambaliyo walaashi yaa meherkeedana kaale iska arag haloo hambaliyo abaayo hambaliyo hala dhahay walaashi maxaan ku dhahay wixii xun oo maxaan ku dhahay ku dhaco waa faafin jirteen oo saan Safiya Tusmo maxaa haddana ma kii horeeto haddana aad ku weyn qaadan weyse haddana ma kan baad keensatay haddana ma kan baa waa dhihi jirteen ilaa hadda waxa sameeysinaa indhe hambaliyada loo soo raaciyo abaayo hambaliya hala dhaho insha Allah ta'ala anagana ducada ayaan kugu soo kaalmeynaynaa kuniyo kowjer duco anaga xagga anaga waa ku soo dhigaynaa hambaliyaan kuleena abaayo kuniyo kowjer kuwa isku waaro ubad kala xiro insha Allah wallahi idinka dhiga dadaan waxaan arkay commentiga soo qoraay maxaa way odaygan weyn oo duqay haddana guursatay maxay war ilaahay amarkiis weyn badanaa markay wiil yariis guursatana waxaa dhihi jirteen wiil ka yar oo ay dhali kartay guursataa dhihi jirteen haddana markay ay guursato qof weyn maxaan ku dhahay haddana waxaa dhaysin maxaan ku dhahay haddana odaygana ma duqan bisinko islaantu may waalate war commentiyada qaldan iska daaya qofka walaalkaada ma la aflagaadeeyo waxna ma laga sheego ma fahantay marna inaad cayso marna aflagaadeyso waa laga fiican yahay insha Allah ta'ala waa laga fiican yahay marka waxa idin leeyahay xumaanta ma fiicno xumaanta
nalka iga dama sorry marka waxaan idin leeyahay wanaaga ma ogi xumaanta iska daaya war wanaaga ka taliya xumaanta iska daaya dee hadday guursataan intaad ku caysaan maxaan ku dhahay odayay guursatay oday weyn bisinko war islaanta ma joogi karta miya qofka hadduu guursado maxaan ku dhahay guurka waa wax lagu farxo waa wax maxaan ku dhahay qofka walaalkaaga hadduu guursato farxadiisa maxaan ku dhahay lagula farxo waaye laakiin inaa caysiin oo aflagaada comment walaa commentiyada dadka markaan arka wallahi bila aad ooga naxay hadda commentiyada markaan arko waxaan videogana soo dugan waa hambalyan inaan u sameeyo waa rabe laakiin commentiyada dadka ay usoo qorayaan darteed waaye maalin dhaweyta markay wiilka guursatay waxaa dhihi jirteen maxaan ku dhahay wiilkan yarkay guursatay maxay tahay waxaan yankay haddana guursatay hadda markay guursatay nin weyn qof weyn oo odayna ay guursatay waxaa leedahay ma ninkan weyn oo saan odayga war wax isku fala waxna kama weyna ninka maxaan ku dhahay waxay kala weeyihiin ma jirto waa laba qof oo isku qalmaayo wallahi hadda bay qof u qalma guursatay qof dhaqan kar oo u qalma Allah ooga dhiga insha Allah ta'ala waxaan leeyahay kun iyo kow jar xabiibtay hambal walaalahayga qaaliga qeyr badan ay inii shirjeynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh